السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحاب قيمة بدن ku xiran channelkeena YouTube ee sahaltay isku soo noqod wanaagsan. Weli waxaan ku guda jirnaa barashada video editing-ka software-ka lagu magacaabo Camtasia Studio. Casharkeena labaad waxaan ku qaadanaynaa wejiga hore ee uu leeyahay Camtasia Studio. ugu horeyn aan soo furno software-ka. marka aan soo furno Camtasia wejiga ugu hore uu leeyahay waa halkan waa new project. waa markaad u baahan tahay inaad samayso project cusub. halkan waa maxay new recording. waa halka recording laga sameeyo. halkan waa maxay open project ku diyaarsanaa oo aad soo gelinayso. halkan waa maxay template cusub. marka waxaan ku dhufanaynaa halkan new project ayaan klik siinaynaa. markaad ku soo dhufato new project wejiga koowaad ee uu leeyahay Camtasia waa halkan. qaybtan waxa la isku yiraahdaa tools ayaa la isku yiraahdaa qaybtan halkan shaashadan madowna waa canvas. qaybtan hoosena waxa la yiraahdaa timeline ayaa la yiraahdaa. okay aan ku horeyno qaybtan tools ka sharaxaadooda. halkan waa file-kana waa maxay waa halka project cusub laga sameeyo. sidoo kale template cusub laga soo geliyo ama project hore u jiray looga soo darsado la save gareeyo. save as import waa halka laga soo geliyo muuqaalada. export laga sameeyo. waxyaabahan oo dhan waxa qaabilsan file-ka. kan ku xigana waa maxay qaybtan waa editing. waa shortcut iyo haddii aad jaraysid, haddii aad wax koobiyeynaysid, haddii aad waxa soo koobiyeysid aad dhigaysid delete. waxyaabahan oo dhan waa maxay editing ayaa qaabilsan. qaybtan waa maxay modify. inaad animation aad ku soo darto muuqaalka, behavior, effects. waxyaabahaas oo dhan waa kuwan animation, behavior, waxaan dhan captions waa kuwan halkan more intay ku sii jira. waa kan visual effects iyo captions iyo waxyaabahan oo dhan modify-gan way qabtaan. okay qaybtan waa maxay view tools-ka iyo inaad show properties iyo show waxyaabahan oo dhan canvas-ki timeline-ki saddexda hadda aan soo sheegnay dhan waxay ku jiraan view way ku jiraan. halkan waa maxay export. muuqaalka markaad dhamayso halka laga export gareeyo. inta meesha ugu badan loo isticmaalo waa maxay local file. waa marka aad muuqaalka computer-ka aad ku kaydsanayso. halkan waa inaad YouTube ku si toos ah u dhigto Google Drive-ka waxyaabahan oo dhan. halkan waa maxay help. waa wixii caawinaad oo markaas aad uga baahan tahay software-kan. meel alla meesha ku dhufato toos wuxuu kugu xiri doonaa website-ka Camtasia ayuu kugu xiri doonaa. casharkani labaad halka ayuu inooga egyahay. sidaa iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe inoo saar. mahadsanid.